degmada Boocame oo dhankii bari ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si rasmi ah looga dhawaaqay jamhad cusub oo markaas la sheegay inay u taagan tahay midaynta iyo xoreynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana mas'uuliyiintan Xuseen in himilada iyo ujeedka loo aasasay jamhadan ay tahay sidii looga meel dhalin lahaa xoreynta iyo midaynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana madashan jamhadan laga dhawaaqay ka hadlay qaar ka mid ah hoggaanka jamhadaas oo ay ka mid ahaayeen Faysal Maxamed Xasan Farel oo loo doortay gudoomiyaha ku meel gaarka jamhadaasi horena uga mid ahaa golihii wasiirada maamulka Khaatumo oo madaxweyne Cali Khaliif Galeed dhawaan xilka ka qaaday waxaana kale oo ku weeranaya kulankan ay warbaahinta kula hadlayeen Farxaan Maxashwaan oo kamid ah saraakiisha ciidamada Khaatumo haatan ku biiray jamhada cusub laga yeelay sidoo kale waxa ayna madashaasi joogay qurbajoog iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Khaatumo kuwaas oo iyana taageeray jamhadan cusub oo laga dhawaaqay degmada Boocame ee gobolka Sool iyagoo arrimahaasi ka hadlay waxa xaaladooda kamid ahaa annagoo ah garab Khaatumo ah oo ciidamada iyo wasiiro iyo xildhibaano iyo wax kasta leh iyo garab jamhada oo midnimo la yiraahdo inaanu maanta halka ku midownay aanu ku midownay hal magac xoogayagina isu geynay halka magac oo ah jamhad ka dagaalami doonta oo u dagaalami doonta xoreynta iyo midaynta dhulka Khaatumo jamhadaas oo la yiraahdo jamhada xoreynta iyo midaynta deegaamada Khaatumo waxaanu la dagaalami doonaa dadka Soomaaliyeedka ee ku soo dilay gobolada SSC weligeeyana waanu la soo dagaalamanay haddana waanu la dagaalami doonaa jamhadatan maskaxda lagu curiyay ma aha maskax meel laga soo waariday oo dibad ka timi ama meel kale ka timi ama maamul ka timi ma aha waxa maskaxdani ka dhalatay kadib markii hagardaamo fara badan mustamacan reer Khaatumo loo geystay oo halgankoodan ku saabsan kuwii dagaalamayay oo aad hebel u garanaysaan markii lugooyo badan oo taa hadda dhacday ugu dambeysay dadka loo geystay bay waxay qaateen arrin ka madax bannaan hindisa kale oo dibad laga soo waarido ama meel kale laga soo waarido oo ku aadan rabitaanka dadkan oo ah xoreyn iyo midayn jamhad u adeegtay inay sameeyaan waxay ka curatay kuwii dagaalamayay fikirka kani in aan jamhadani ay u furan tahay dhammaan mustamaca reer Khaatumo inay ka soo qayb galaan ciddii ka madax bannaan weeye maamulada hareeraha ka xiga waxaan u baaqayaa halyeeyadii ciil qabay oo ku ciil qabay inay la dagaalamaan cadawga in ay maanta hayaan abtirsiyo run sheegaya oo ku aadan tii ay qabeen oo ahayd inay cadawga la dagaalamaan jamhadani mid talada tuurta ku sideetay ma markay gaadho himilada ay leedahay oo ah inay cadawga dhul ka kiciso taladu waxay u furan tahay mustamaca reer Khaatumo soo codidayda soo geeyna meel waxay noo khasabtay inaanu waxa la cid dagaalamaysay in aanu ku buhoono jabhad cusub oo la magac baxday jabhada mideynta iyo xoreynta deegaanada Khaatumo jabhadu waxay yeelatay hoggaan ku meel gaar ah Faysal Falaaligo oo gudoomiye ah aniga oo ah arrimaha dibadda iyo jaaliyadaha Farxaan Baxashweyn oo ah xubin guddiga sare ah anagu waxaanu maartay ballan qaadaynaa inaanu dagaalka wadno jaaliyada waxaan ka sugaynaa wixii laga rabay anagu hadda nafteedii horey iyagana waxa laga sugayaa inteeda kale sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ee maqal sameeyay joogaan ee midnimada aaminsan Soomaaliya iyaga laftooda waa uga baahanay taageero hiil iyo hooba anagu ciidamada Khaatumo ama jamhadda xoreynta iyo midaynta Khaatumo State deegaamadeeda waxaanu dhulkan u joognaa aanu ugu jirnaa xoreynta dalka horena aanu ugu jirnay waana la dagaalami doonaa waana ku jiri doonaa halyeeyada ciil qabay waxaan ugu baaqayaa inay garabkayga soo istaagaan